aybadooda dadka Soomaaliya oo dareer aadana wagrateen shaqadoodu adkaato oo lagu raadsaylay ilaahay balkii tilaad cidooda بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي نحريستي جنها كورابيه تحدى يرتاي نسوقيني وحوها أبوان كيويناي عانكاها أبوان محمد حاشي دمع قاري كاسو جيريو دي سنة كي لابد يكون إيا لبيو طوانكي أكتوبر إلهي هاو نحريستي انت اوسن جيريون كور أيو تريي سوغانتا أي كجرتي تحدى ير ee uu kaga hadlayo xaaladda sool iyo sidoo kale awdal ee maanta taagan taas oo si odorasay waxa mustaqbalka xaalku noqon doono haddaba daawadayaal waxaad moodaa abwaanku isagoo waliba in badan mootan oo 11 sano mootan in maanta ay dhacayaan wixii uu sii saadaalinay maadaama uu ahaa nin indhergarada oo meel fog wax ka arkaya haddaba iyadoo ay kacdoon buluuga gobolka sool maalmahanba uu ka soconayay kaas oo soo curtay 2022 dabayaaqadiisii December haatanna wax bil ka badan soconaya isla markaana la baxay kacdoonka buluuga ayaa waxa moodaa haatan in kacdoonkii uu sii talaabay gobolka awdal oo kacdoonkii uu hal mar booday waxa baraha bulshada saacadii la soo dhaafay qabsaday dhalinyar ka soo jeeda gobolka awdal kuwaas oo ugu baaqay dadka ku dhaqan magaalada Boorama ee magaalo madaxda gobolka awdal in ay isku soo baxaan taariikhdu marka ay tahay 4 bisha February ee inagu soo fool haduu alhaawada raali ka ahaado ee Britoole ka noqonaysa 4 bisha February in la isugu soo baxo ayay dadweynaha ay fareen dhalinyaradu 4 bisha February waa maalin ay dadka reer Boorama ay tirsanayaan in ay saraakiishi SNM ee uu kamid ka ahaa waliba uu markaasi horboodayay sida ay ku eedeeyaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay xilligaasi xasuuq baan ay ka geysteen magaalada Boorama markii ay dawladda dhexe ee Soomaaliya ay burburtay waxyaabo kale oo ay tabanayaan isla beeshan ayaa jira waxaana waxyaabahaasi kamid ah suldaanka guud ee ugaaska guud ee beesha Samaroon oo mar hore 2020 markii ay taariikhdu ahayd August 27 laga celiyay magaalada Boorama ugaaska guud ee beelweynta Samaroon ugaas Cabdirashiid ugaas Roble isagoo tan iyo xilligaas dibad joog ka gobolkii dadkiisu ay deganaayeen sidoo kale Suldaan Wabar ayaa la xasuustaa oo marka jabhadeynay gudaha gobolka awdal walow markii dambe ciidamadiisu ay isdhiibeen isla markaana jabhadeyntii uu joojiyay haddaba daawadayaal iyadoo arimahaasi oo dhani ay jiraan ayaa waxa soo baxaya in dadka reer awdal iyaguna ay doonayaan inay noqdaan maamul ka madax banaan Soomaaliland isla markaana ay dawladda dhexe Soomaaliya ay u aqoonsato inay yihiin maamul goboleed gooniya walow ay Soomaaliland ay sheegayso 30 sano inay ka gooday Soomaaliya inteedii kale haddana hogaamiyaha Soomaaliland ee haatan jooga oo kamid ah saraakiishii SNM ee dawladda dhexe Soomaaliya ay wax soo bartay markii dambana riday dawladdaas ama ka qayb qaadatay riditaankii dawladdaas ayaa maanta isagoo oo markaasi daahan 70kii kor u dhaafay waxa uu soo joogaa shacabkii Soomaaliyeed iyo barbaartii burburkii kadib dhashay oo maanta iska diidan in Soomaaliya laba loo kala qaybiyo halka isagii wax ku soo bartay dawladnimadii Soomaaliya walow markii dambe laga dhaxlay burbur iyo dhibaato oo ciidamadii dawladda laftigoodu ay galeen gabood falyo shacab Soomaaliyeed ay u geysteen intii jabhadaha ay la dagaalamayeen haddana maanta waxa la taagan yahay Soomaaliya oo si markaasi kacdoon ah u muuqata mid isku raacaysa waxa idin muuqanaya waa astaanta iyo calanka guud ee ay isticmaalaan beesha Gadubiirse ama Samaroon ee kamid ah beelaha ku dhaqan gobolada waqooyi ee Soomaaliya sidoo kalena wax ka dega dalka Itoobiya gaar ahaan dhulka Soomaali galbeed ee hadda dalkaas hoostaga ee guumistii isticmaalka u raaciyay calankan ay u jeedaana waa calanka Khaatumo State lama oga sidoo kale guud ahaan beelaha kale ee ku dhaqan gobolada waqooyi inay markaasi iyaguna sidaan oo kale ay u kici doonaan waxaana xusid mudan sidoo kale beelweynta Ciise ee markaasi degta dalalka Djibouti iyo sidoo kale Soomaali galbeed sidoo kale inay qayb ka degan gobolka awdal walow beesha ugu ballaaran ee ku dhaqan gobolka awdal ay tahay beesha Samaroon haddaba daawadayaal iyadoo arimahaasi ay jiraan ayaa waxa soo baxaya in uu sii xoogeysanayo kacdoonka buluuga waxaana loo malaynayaa ayaa la leeyahay in uu socdo diyaar garow weyn oo ku aadan gobolka awdal kaas
oo la filayo 4 bisha February ee sanadka 2023 oo aynu ku guda sanadkan aynu ku guda jirno iyo 4 February oo ay naga xigto oo kaliya 4 casho in ay isla dhaqaaqi doonto magaalada Boorama ee markaasi xarunta gobolka Awdal isla markaana maalinta iyada ah laga yaabo in ay markaasi magaalada laga dareemo kacdoonka buluuga waxa soo baxay warar sheegaya in dadka ku dhaqan magaalada Boorama ay sii wadaan diyaar garow ay ugu diyaar garoobayaan maalintaas kuwaas oo qaarkood diyaarsanaya calanka astaanta ah ee Cawaale ee xidigta shanta gees leh ee markaasi dhexda uga yaalo waxa kale oo jira daawadayaal dad badan oo ka soo horjeeda hogaaminta madaxweyne Muuse Biixi oo ka soo jeeda gobolkaas Awdal waxaana xusid mudan in ugaaskii guud ee beesha Samaroon oo aan markaasi laga xishoon xataa ugaasnimadiisa ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble oo ahaa nin xushmad mudan oo laga celiyay 27 August 2020 magaaladii uu markaasi u dhashay iyo deegaankii gobolkii u dhashay inuu hadda ku sugan yahay Ethiopia oo mararka qaarkood ay Somaliland ku eedeyso inuu karkarinayo waxyaabo lidiko ama ka soo horjeeda Somaliland Suldaan Wabar oo isaguna mar jabhadeynay isla markaana haystay ciidamo fara badan walow markii dambe ciidankaas ay Somaliland ay markaasi ay la heshiyeen ayaa isagana la soo warinaya in uu wada dhaqdhaqaaq waxaana jira dhinacyo kale oo siyaasiyiin iyo ganacsato iyo haldoor isugu jira oo iyaguna raba inay kacdoonkan ka faa'iideystaan waxaana la garanayn hadii kacdoonadan ay sii xogeystaan inay ku sii fidi doonaan sidoo kale gobolada togdheer qaybaheeda kale sidoo kale gobolka markaasi Maroodijeex iyo sidoo kale gobolada kale ay digto beesha dhexe maadaama laftigoodu mid kamid ah beelahaas beesha dhexe ku aftirsada ay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo calanka buluuga dhibaato badan u muteen dartiis marka taariikhda dib loo raaco 1994 oo beesha Garxaajis iyo sidoo kale Soomaaliland inteeda kale dagaalo culus ay dhex mareen kuwaas oo ka ratimay ama kacdoonka ugu weynaa oo ka kacay arinta ku aadan midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale calanka buluuga haddaba daawadayaal waxa Muuse Biixi la soo warinayaa in xaaladiisu tahay mid aan wanaagsanayn oo jahwareer siyaasadeed oo weyn uu waajahayo isagoo awal loolan kula jiray axsaabta mucaaradka ee Somaliland si weyn uga cabsi qabay xisbiga wadani oo hogaamiye Cabdiraxmaan Ciro ayaa hadda tala farahi ka baxday waxaana uu la yaabay ayaa leeyahay duufaanta ka bilowdatay cirifka ee markaasi sool iyo sanaag iyo cayn haddana u sii fidaysa ama u sii boodaysa cirifka gobolka Awdal u sii talaabaysa taas oo laga yaabo hatta inay sii saamayso gobolada kale ee markaasi aysan duufaantu weli gaarin lama oga daawadayaal xaaladdu waxay noqon doonto laakiin 4 bisha ayaa qiimeynta ugu weyn la sameyn karaa waxaana dadka mucaaradka ku ah Somaliland kamid ah الفنان نمعان هلاع oo isagu markaasi kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed kana soo jeeda gobolka Awdal waxaana daawadayaal maalmihii ugu dambeysay la arkay isagoo oo faalooyin ka qoraya arinta kacdoonka sheegayana in gobolka Awdal uu ku sii fidi doono kacdoonka dhalinyar kale oo iyaguna baraha bulshada aad ugu isticmaalaya calanka markaasi reer Awdal ay isticmaalayaan hadda ayaa iyaguna waxay sheegayaan in ay noqon doonaan maamul ka madax banaan markaasi madaxweyne Muuse Biixi iyo xukunkiisa dhalinyarada hadda sawirradooda arkayseen waxay ahaayeen dhalinyar markaasi qaarkood ay ahaayeen agoon aabayaashood ay geeriyoodeen xilligii 1991 markii dawladda Soomaaliya ay dhacday xilligaas oo jabhadda SNM ay markaasi falal dilal ah ay ka geysatay halka waa gobolka Awdal gaar ahaan caasimadiisa Boorama haddaba daawadayaal waxa dadka Soomaaliyeed mar walba wanaagsan midnimo muwaafaqo iyo sidoo kale hore u socod waxaana xusid mudan in dadka Soomaaliyeed ay dhibaatooyin badan isku geysteen gudahooda oo hadii hadda la raaco ama dib loo raaco taariikhda gobolba gobol uu dhibaateeyay ama reerba reer kale uu dhibaateeyay ama dawladnimo ay isku dhibaateeyeen 30 sano ee la soo dhaafay waxaana xusid mudan inay mar walba ay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed waa goboladii waqooyi iyo koonfureed ay israacaan midnimadooda ay laashadaan ayna raadiyaan intii ka maqneed walaalahood ahaa laakiin in intii la kala qaybiyo siyaasiyiin macaashiraadisa isla markaana raba in ay dhaqaale ka sameeyaan iyo dakhli iyo magac sidoo kale ay dawladdu u burburiyeen taas aawadeed in ay markaas ummadda Soomaaliyeed kala qaybiyaan wax la aqbali karo ama la asmici karo ma ahan ay leeyihiin dadka dheergaradka dadka dawladnimada u soo joogay dadka markaasi Soomaali inay awood yeelato ama israacdo dadka doonaya mar walba waxa raba inuu Soomaaliya kala qaybiyo waa siyaasi danaysta oo dantiisa goonida ka hormarinaya dantiisa markaasi danta ummadda kaas oo aan inna saxan u sameeyeen qabiil ha ahaado ama gobol ha ahaado ama hayb ha ahaado xitaa mararka qaarkood qabiilkiisa hoose ayaa laga yaabaa inay bahashu cadaalad darradu ay saamayso oo uu labo u sii kala dhambaalo
waxaanu isha ku haynaynaa xaaladda Boorama iyo kacdoonka dadweynaha reer Boorama ay sameyn doonaan inagoo taageeri doona dhaqdhaqaaq kasta iyo kacdoon kasta oo midnimada ummadda Soomaaliyeed lagu xoojinayo oo guud ahaan gobolada Soomaaliland laga sameeyo halkana ku soo gudbin doona wararkii ugu dambeeyay ee arrimahaasi ku aadan waxaanu leenahay Soomaalida Ilaahay qulubtooda burcadaha isku mariyo hana israacaan oo hamidoobaan